xerada afisyoon ee magaalada muqdisho waxaa madaxweynaha waqtiga ka ilaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku shir gudoomiyay kulan hordhac u ah shirka qaran ee dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay markaa ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. kulankan oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha waqtiga ka ilaaday waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish. si kastaba lama ogo waxyaabaha ay uga hadleen shirkan hordhac u ah shirka guud madaxdan markaasi kulantay. hase yeeshee waxaa ka maqan madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland oo weli soo gaarin goobta shirka. warar madax bannaan oo Nation Media ay heshay waxa ay ku waramayaan in imaanshiyaha shirka laba shuruudood ay ku kala xireen madaxweyne Dani iyo Axmed Madoobe. qodobka koowaad ayaa ah in ammaanka goobta laga madax banaaneeyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo, iyo qodobka labaad oo ah in shirka ka hor laga heshiiyo ajandaha looga hadlayo shirka. balse waxaa markaasi ammaanka la wareegay sida war-saxaafadeed ka soo baxay midowga Afrika ee AMISOM ay ku cadeeyeen in iyagu ammaanka goobta shirku ka dhacayo oo xerada Afisyoon ay damaanad qaadayaan. Maxamed Yaxya Jino, warbaahinta Nation, Muqdisho.